بسم الله الرحمن الرحيم. واد السلامي walaalahayga qaadiga ku soo dhawaada F Media. Maanta falanqaynteenu waxay noqonaysaa ama mowduuceenu qaala ku socota gogashii ee u fidisay beesha dalandoole mudulood qoomiyadda Oromo. Isir wadaaga labada beelood ka dhaxeeya qodobka labaad ku soo dhaweynta magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay beesha Oromo. qodobka saddexaad in la siiyo xaqa dhalasho Soomaaliyeed inay yeeshaan beesha Oromo ku xadgudubka beelaha kale ee Soomaaliyeed ee beesha dalandoole mudulood ee la dhalatay ee Soomaalinimada wadaagaan gaar ahaan waxa ay u geysteen beelweynta banaadiriga ama reer xamar. بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhawaada waa videoga aan maanta falanqaynta ka bixin doono qodobadiisana xagga hore ku soo xusay laakiin waxaan doonayaa inaan soo waafajiyo qayb walba odayaasha ka soo qayb galay sida u hadleen iyo fikirkeyga aniga waxa ay tahay aan kaga soo horjeedo waxa ay halka ku sheegeen ama kulanka ay ku carabaabeen aynu wada dhageysano. qowmiyadda Oromada ayaa magaalada Muqdisho maanta gogol ugu fadhisay beesha dalandoole mudulood kulan ay isugu yimaadeen qowmiyadda Oromada iyo beesha dalandoole mudulood kulankan ayaa ahaa mid ay soo agaasimeen qowmiyadda Oromada ayna ugu gogol dhigayeen walaalahooda dalandoole mudulood. Kulankan gogol dhiga ah ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameedyada cuqaasha ugaasyada labada dhinacba. Inta badan kulanka ayaa waxa looga hadlay xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya qowmiyadda Oromada iyo dalandoole mudulood. sidoo kale waxay diiradda saareen inay qowmiyadda Oromada ay hesho xuquuqdooda ka maqan. Ugu horeyn waxa goobta ka hadlay qaar haddaba sida halkan ka aragtaan waxa weeyaan waa kulan la agaasimay dalandoole mudulood reerka la yiraahday abgaal ka tirsan ee reer mudulood ah waxaan la jeedaa hawiye ka tirsan inay soo abaabuleen kulankan iyagoo ay ula jeedaan inay maanta halkan ay ka cadeynayaan dadka israaca isla yihiin ee isirka isla wadaagaan ee isku abtirsadaan ee qowmiyadda Oromo. haddaba sheeqan halkaas soo istaagay waa dadkii madaxda ka mid ahaa ee Oromada ahaa ee lagu soo dhaweeyay deegaanka Muqdisho 30 sano ka hor ma garanayo dhibaatooyin xilligaa jirtay ee Oromada lagu hayay ee soo barkiciyay inay halkaa dhulalka Soomaaliyeed keentay kadibna iyaga ay soo dhaweeyeen bal hadalkiisa inuu dhageysano. adduunka meel 40 sano qof uu qaxooti ku yahay ma jirto iyo 50 sano waxaan xasuustaa 64tii bilaaja markaan nimid dadkii gabdhaha na siiyay guryahooda nagu soo dhaweeyay waxay ahaayeen beeshan maanta waxaa idin soo dhaweynaya ilmihii gabdhihiinu ay dhaleen odabtiyaashu ay dheen waxayna dalbanayaan inay helaan xaquuqdii waddankan ay ku lahaayeen waxaan idiin soo horumarsanay bani aadamku hadduu jase leeyahay jasaad leedihiin asxaabtu inaan tilmaanno laba ubadkaad dhasheenna xaquuqdii ay lahayn dalbanayeen aad barbar istaagtaan intaa waxaa dheeri ah annagu dad wada dhashaan nahay ma la qarin 80% geeska Afrika dadka ku nool ayaa nahay waana isla dhalanay luuqadan kuma xirna walaalayaal waxaan rabnaa soo dhaweyntii walaaltinimo shalay ayaan rabnaa midii xaquuqeedna inaan helno inaadna barbar istaagtaan baan doonaynaa taasaan idinka dalban sida ka muuqato sheeqa matalaya beesha Oromo ay soo dhaweysay walaalahooda qabiilka dalandoole mudulood wuxuu ka carabaabiyay qodobo muhiim ah ugu horeyso tan isir wadaaga ah ee labada beel ka dhaxeeyo ee ku soo dhaweeyeen iyo soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen ay ku soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho iyo in la siiyo xuquuqdooda ka muwaadin ahaan Soomaali ahaan. haddaan ku horeeyo kan isir wadaaga ah waxaan leeyahay horta ma garanayo aniga beeshan dalandoole mudulood waxay sheeganayaan inay hawiye ka soo jeedaan marka ma garanayo goorta isir ay wadaageen iyaga iyo Oromo ee walaalo yihiin xagga dambe video waad arki doontaan odayaasha qaar baa istaagaya beesha dalandoole mudulood ee qiranaya
taa macnaheeda waxaan kaga baahannahay mujtamaca ama muxuu ahaa qabaa'ilka ama beesha hawiye ee walaalaheena ah inay caddeeyaan inuu asalkooda oromo yahay oromo ee galaan deedna saa isir ay ku wadaageen. qodobka labaad wuxuu yahay in muqdisho lagu soo dhoweeyey. horta waxaan leeyahay kusoo dhoweynta uu ka hadlaya 40 sano 40 sano inay tahay aniga ilama muuqato maxaa yeelay markaad dal dhisan ee dowlad leh ah xuduudiisa soo galaysid waa inaa wax la yidhaahdaa ID card ama aqoonsi aad kusoo gashaa. haddaad qaxooti tahay dalkaas waxaad ku joogaysaa qaxootinimo maalintii dalkaaga hagaaga ayaad ku noqonaysaa kaar qaxooti baa lagu qorayaa. haddaad tahay qof kusoo dhuunta dalka waa lagu qabanayaa xabsi baa lagu geenayaa dalkaaga lagu musaafirinayaa. waa intii dowladdii hore Soomaaliga dhisneed 30 sano ka hor aysan burburin. laakiin 40ka waxaan malaynayaa sheekadu ku macaansadeen waxay ahayd inay yidhahdaan 30 sano ee ugu dambeeyey maadaama walaalaheena aan la soo degnay. 30 sano burbur baa dhacay dalkii dowlad ma lahayn xuduudda Soomaaliya waxaad ogtihiin may xadidneen ciddii doonta ayaa iska soo galaysa maxaa yeelay dowlad ma ah lama yaqaano wixii asal ah iyo wixii muxuu ahaa soo galay maxaa yeelay nidaam construction ama dhisan ama constitute maamul dhisan iyo rules iyo kala dambeyn ma jirin. sidaa darteed waa maxay 30 sano waa lagu soo yacay dhulka Soomaaliyeed. sidaa ayaan filayaa aniga inay kusoo degeen markaana beesha ay sheeganayaan istiraaca isleeyihiin inay markaa soo dejisay hablahooda u guuriyeen sida halkan ka caddeynayaanba sidaa ku walaawaloobeen horena hal isir u ahaayeen. aan hore usii wadno waan sii dhegaysanaynaa warka. balse waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan dal iyo dibadba waxaan rabnaa in dadkaanu markii hore waxay ka yimideen Ethiopia markay imaanayeen dalkan waxay ku yimideen ayagoo isirka ay ka dhasheen raadsanayo ayay dalkan ku yimideen markay imaanayeen waxaa loo yaqaan Oromo dalkan imaato halka markay yimaadeen isirka ay ka dhasheen ayaa soo dhaweeyay magaaladan ku soo dhaweeyay gabdha siiyay dejiyay maantana waxay marayaan 30,000 oo qoys in ka badan ay marayaan. sidii walaalkii hore u sheegay adduunyada meel qofka uu xuquuq la'aan ku yahay 40 sano ma jirto qofka 5 sano ku hela xuquuqda ku hela. markuu horeyso waan caddeeynaa Oromo Soomaali dad kale oo jiisi kale ah oo wadan kale ka yimid oo xuquuqda kan ka raasanaya ma ahanay dadkan markay wadanka imaanayeen markii hore waxay ku yimideen inay dadkan la dhasheen isirkaas ay ku yimideen. odaygan kalena waxaad arkaysaan oo halkan idinkaga muuqdo inuu hadalkii dadka hore ay kusoo hadleen uu sii adkeeyo wuxuuna leeyahay dadkan halkan yimid ma aha dad Oromo ah ee Ethiopia ka yimaaday waa dad ku imaade in isirkooda ay raadsanayaan macnaheeda anaga nala dhasheen buu jeedaa anaga ay nala dhasheen Oromo ayaan walaalanahay Oromo haddaad walaalo noqoteen marka macnaheedu waxay noqonaysaa idinkana Oromo ayaa tihiin. sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in xaqooda in la siiyo ay tahay 30 sano ay degan yihiin ama siday sheeganayaan 40 sano ay degan yihiin dadka halkaa ee Muqdisho. wuxuu leeyahay waa in xaqooda la siiyaa passport la siiyaa dhalasho ay sidaa ku helaan. mid baa jirta horta qofku marka dhalashada la siinayo waxay tahay maamulka halkaa ka dhisan ama dowladda halkaa ka dhisan markaa jirta ayaa dhalashada bixiso afraad ma bixiyaan marka horta dowladda ay u marayaan dhalashadooda inay siiso ee qorto ee Soomaali ay ka dhigto Oromada ayaa loo baahan yahay. tan kale isir ah hadda isir xataa aad wadaagtaan dee maanta shaqo iskuma lihidiino waxa weeyaan dal baad joogtaa maanta qabaa'ilka Soomaaliyeed waad garanaysaan sida aala daarood oo kale qabaa'ilka daarood baa ka mid ah dir baa ka mid ah ee ku jiraan dad kala duwan Sheekaashi Isaaqi iyo Samaroonti Ciisihii isku soo wada dar. sidoo kale waxaa ka mid ah qabaa'ilka reer Xamal ama reer Banaadiriga ee Soomaaliga ah iyagana asalkooda Carab bay ka soo jeedaan. marka miyaynu oran karaynaa maadaama dadkaas dalka ay degnaayeen dhulka Soomaaliyeed oo Ilaahay ku beeray ha kala soo horeeyaanba in
maanta la yidhaahdo baasaboorka waxaa loo furayaa dadkii kasoo tageen berigii hore ee carabta ee isku family ahaayeen ayaa loo yeerayaa dalkaa lagu casuumayaayo soomaali baa laga dhigayaa baasaboor baa la siinayaa horta taa waxaan u arkaa qalad cad inay tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan ee arki karayso tan kale meesha jirta waxay tahay dad 30 sano jooga ayaa waxaad u raadinaysaa xaq inay helaan iyo xuquuq inay yeeshaan soomaalida aad af iyo wax walba aad wadaagtaan iyo diin iyo muxuu ahaa wada noolaasho aad iska guursateen haddaad doonto walaalahaaga aysan ahaan wada noolaasho iyo dhulkii aad isla degan tihiin xataa kasoo qaad dadkaa sheegaysa maanta aad ku tilmaantay Kismaayo Boosaaso hadday yimaadeen xataa magaalada Muqdisho maanta kuwa baa waqti badan 70 sano ama 60 sano ah ama 50 sano kasoo qaad halkaa kula degnaa ama dadka soo dhaweysay ayaa waqti badan haddii xaq la raadinayo kuwan waxaad u raadinaysaa deegaan ayaad u raadinaysaa iyo baasaboor kuwa kalena waxaad leedahay way noqonayaan doomahoodii ayay ku noqon sidoo kale waxa iyaguna hadallo kooban goobta ka jeediyay odayaasha dhaqanka ee beesha Dalandoole Mudulood waxayna u mahad celiyeen qoomiyadda Oromada ay walaalaha yihiin goglahan waa socod doonaan meel fogna waa gaari doonaan maanta sida aad ka warqabtiin dulmi ugu weyn wuxuu gaaray dadkii shalay aan soo dhaweynay oo guryahayna dejinay oo goofafkayna siinay oo dhulalkayna guryo ka dheer ka dhisteen maalin dhaweeda markii la yiray xamar waxbaa la siiyey nacnacda dhacday iyo waxa dhacay waad maqasheen Boosaaso iyo Kismaayo dadka ka jooga meeshaan Dalandooley ku degan yihiin kibir iyo faqfaqna cid aan ka yeelayna male shalay doonay ku yimideen doontoodiyayna ku naqan doonaan runta markay timaado sidaad arkaysaan idiin muuqato ninkan waa oday dhaqameed weeyaan beesha Dalandoole Mudulood kasoo jeeda wuxuu ku hadlayana waad maqlaysaan wuxuu leeyahay dadkii Soomaaliyeed anigay nagu soo degeen anagaa dhulka siinay iyo goofaf baa siinay goofafkii baa dhisteen guryo iyo fooqaq bay ka dhisteen haddaba Soomaalida kale muu reebin ugu horeyn wuxuu ku xadgudbay horta beelaha Soomaaliyeed kale dhulalkii Soomaaliyeed soo degay ee isla degnaa inaan usii galo ma doonayo wuxuu ka hadlay Kismaayo meelaha ay Puntland iyo waxyaabo laga yimid dadna halkaa la iska soo degay taa way jirtaa laakiin marka la eego daaraha ugu badan ee dhaadheer ma aha inay kaliya iyaga leeyihiin daaraha qadiimiga ah ee ugu dhaadheer waxaa badanaa degan dhisan waxa weeyaan waa beelweynta reer Banaadiri loo yaqaano ama reer Xamar iyagana waxa weeyaan si gaar marka loo eego uu ku xadgudbay wuxuuna sheegay in doon lagu noqonayo horta waxaan leeyahay adiga maanta inaad hadasho hadalkuma banaano maxaa yeelay waxaad sheegatay inaad tahay Oromo horta waxaan doonayaa taa inaad ka noqoto oo horta aad ku soo noqoto Soomaalinimo Soomaalida sidaad og tahay jinsiyadooda waxay sheegtaan inay yihiin dad ku abtirsada ama ka soo jeedo dad Carab ah sidaas ayay aaminsan yihiin badankooda ayayna sheegtaan oo aniga maanta kula hadlayo ee ka soo jeedo beelweynta reer Banaadiri ama reer Xamar sida aad u taqaanaan ka mid ah marka waxaan u maleynayaa adeer gaf baa halkaa kaa dhacay waxaa loo baahan yahay inaad dadka shacabka Soomaaliyeed aad qanciso halkaa halis weyn baa ka muuqato oo ah in Soomaalida dhulkooda iyo deegaankooda la siinayo dad aanan u dhalan aana deegaanka asal u ahayn adiga dadka deegaanada degan ee ku xareeraysan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda dhulka Soomaalida ay haystaan oo dhan waxaad leedahay doon bay ku noqonayaan deegaanadood bay ku noqonayaan hadday Soomaali yihiin qof intaasoo kilomitir noo jira aan noo dhaweyna ee Oromo ah intaas soo lugeeyey ama lug ha ku soo lugeeyo ama gaaraha soo raaca wuxuu dooneen waxaad leedahay waan soo dejinayaa maanta xaq baan u raadinayaa
weliba asagoo dalkii soo galay 30 sano ee dalka burbur ku jiray ayaa waxaad leedahay waa walaalkeyga dhalashaa la siinay anigoo iga tirsan yahay marka arrintaa waxay u baahan tahay inaad beelweynta hawiye ka wada tashtaan maalin walba waxaynu arkaynaa mar walba waxaa meediyaha lasoo saarayaa dad ka tirsan odayaasha beelweynta hawiye waxyaabahan soo bandhigaya kadibna dadkii kale soomaalida aflagaadeynaya jaafeynaya wax wanaagsan maaha haddii arrimaha jiraan beelweynta hawiye ay isku raacsan tahay inay oromo yihiin bal ha inoo caddeeyaan annagana haddaan soomaalinahani intayna kale dee aan wada fadhiisano aan ka wada hadalna arrinkaa hadday iyaga oromo yihiin waa oromo horo weeyaan ee u timid waan ku ciseynaynaa dalka maanta soomaali bay noqdeen laakiin oromo kale ee maanta culayskeeda iyo deegaanadooda leh Ethiopia degan inay noo soo raraan waxna qabata ma ah hadhoodina dowladeena ee qasaan sidaa madax ay wax walba ku noqdaan annaga dhibaato kama bixi karayno dhexdeena ayaa isbaabi'ine ayaa isburburina maanta dad kale dhexdeena ha soo gelina billahi calaykum waxa weeyaan taan waa in laga waantoobaa ay ku wanaagsan tahay sidoo kale waxa weeyaan in la isxishmeeyo baa wanaagsan halkan dhulkan nin ka xiga ma jirto nin walba meel buu ka yimid soomaalinimada hana deeqdo aan isxishmeeno nin walbana dhulalkiisa asagaa leh guryihiisa iyo deegaankiisana asagaa leh cid ka eri karayso ee ka qaadan karayso ma jirto laakiin dowlad baa dhisan xuduud baa la sameeyey midnimo ayaa la sameeyey dee taa waa in laisku qadariyaa ee la ixtiraamaa wixii jinsiyad dambe maanta la sameynaya tii hore wayba soo dhamaatee ta maanta la sameynaya cusub ee dowladda in lagala tashto ayaa wanaagsan sidaa ayuu fikirkeyga yahay sidaa ayaan qabaa dee maanta dadkii aan islahayn waa qaal weeyaan mas-uuliyiin weeyaan ayaa sidaa u hadlaya xataa waxaa iska dhici karta inay ceeb ay usoo jiideen beelweynta ee ka dhasheen mudulood gaar ahaan ee kusii beerayso beelweynta hawiye waxaan leeyahay beelweynta hawiye ilaahay ha karaameeyo ha ciseeyo waa dad wanaagsan ee walaalaheena ah ee soomaali nala ah laakiin waxaa jirto waayahan dambe dad iyaga ka dhashay mar walba tviyada iska istaagaya ee aflagaadeynaya ummadii soomaaliyeed ee kale marka waxaan ka codsan lahaa beelweynta hawiye ee walaalaheena ah in dadkan waxay ku hadleen ee sheeganayaan inay oromo yihiin inay jawaab ka soo bixiyaan ama inay sax tahay ama inay qalad tahay sidoo kalena beelaha ay u gafayaan soomaalida ahna inay ka ahbiyaan ee ka celiyaan intaa waxay soo gelisay inaan qaladaadka ansaxo wixii sax ah oo alla xaggiisa ayay ka ahaatay ee iga soo baxay wixii qalad aan ku hadlane shaydaanka ayay ka ahaatay marka waxaan leeyahay walaalayaal aan iscafino muxuu ahaa midowno midnimada ayaana deeqdo midi ku taagna waxba ma tarayso dalku unbay sii burburinaysaa wabilaahi التوفيق